Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan noo wadaa cunno yar oo fudud oo dalag ah. Marka maadaama ilmaha dalagga uu wanaagsan yahay, si qurux badan taa u hagaajisay ilmaha ay ku cunayaan. Marka hooyo bar cunugaada inuu cuno wax walba oo cunaa oo la cuno oo caafimaad ah. Marka digirta ama looma gaaro galeyda, marka waxaan ka hagsan doonaa galey iyo qumbo. Qumbahana maasha Allah caanihiis faa'iido badan saliid oo dabiici ayuu leeyahay. Ilmaha uu wanaagsan yahay korinsho qaata. Marka waa kaasahay cunno caafimaad ah noo wada hilibkan wax badan ma ka badinaysid ilmaha markay yar yihiin wax yar loo baahan yahay marka hal cado yar oo hilib arya ayaan ugu hagaajin doonaa insha Allah. Spices-kana muhiim u yahay ilmaha inay ku bartaan cunugaada hal sano hadduu gaaro bisideeda hadduu gaaro waa u bilaabi kartaa spices-ka laakiin ma badinaysid wax yar la rabaa inaad isticmaashid. Basashana wax yar aan isticmaali doonaa ama basal gaduuda. Marka waa kaasahay qumbahaygan biyo la soo dhigtay spices-ka iyo toonteedana waa raacsan doonaa. Baamiyahana muhiim u yahay ilmaha. Marka waa kaasa cunno yar oo caafimaad ah oo dalag ka hagaajin doona markaas nooca rabta uu hagaaji kartaa haddana waxa ku soo shubtay saliid 2 qaande ah saliidan ilmaha wanaagsan iyo cusbada mar walba waan sheegaa. Marka waa kaasahay ilmaha cunno yar oo caafimaad looga soo tuuro dalagga ilmaha marka yaraanta ku bartid hadhood markuu weynaado wuu ku cunayaa wuuna ka helayaa. Marka bar hooyo cunugaada wax walba la cuno faa'iido ayay leeyihiin cunnada looma sii gaaro cunnada oo wadanka marka muhiim ayay u tahay ilmaha inaad bartid. Maanta waxaa uga soo tuurayaa soor baranso. Marka waa kaasahay soorteen hilibkeena si yar u soo jarno hilib yar oo jilicsan oo hilib ari dufan saaidkan ilmaha u wanaagsan ama saliida iyo cusbada. Marka ugu yareynaa wax yar markay isqabsadaan si qurux badan ugu soo hagaajin doonaa cunno yar ay ka heli doonaan waa hal sano wixii ka weynaa siisan kartaa. Hooyo bar ilmahaada inay cunaan cunno caafimaad ah insha Allah mar walba digsi gooni ugu sameey sidaad ogaato waxyaabaha cuno iyo waxyaabaha cunin. Marka waa kanaay hadda hilibka markay isqabsada soorteen ku soo darsaday. Soorta marka hilibkii iyo khudaartii inay isqabsadaan rabaa si qurux badan markaas ay ugu soo baxayaan ilmahana way ka helayaan dhanaanka ay dhexda galay. Kadibna waa soo biyeysanaya markuu soo karsamo sidoo ku soo arkina haddana waxaa ku darsaday biyo qumbihi. Qumbahana faa'iido badan ayaa ku jira saliidiisa waa muhiim inuu helo cunuga jirka skinka taa u marsata skin qurux badan ayuu yeelanayaa ilmaha. Marka saliid qumbaha lama soo koob markaan soo hagaajisana qurux badan ayaa ugu soo hagaajiyay decoration yar u sameeyay mooskiisa yar ajak ugu soo siiyay waa kaasahay qada caafimaad oo ilmaha kula korinayso maasha Allah oo la hubo 100% waaye marka ku mahadsantihiin soo boqoshadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi.